kumanaan dadkii ku barakacay daadadii ku dhuftay magaalada Beledweyne ku sugan duleedka magaaladaas iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la kulmay si wax badan uga ogaado xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin. sidoo kale madaxweynuhu waxa uu kulan la yeeshay mas'uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka Hirshabelle qaar ka mid ah waxgaradka Beledweyne oo horkacaya ugaas Xasan ugaas Khaliif kuwaas uu ka dhageystay baahida degdega ay qabaan dadka fatahaadda webigu ay saameysay. madaxweyne Farmaajo oo laga dheehan karay sida uu uga xun yahay xaaladda dadka u badan hooyooyin iyo caruur ay ku sugan yihiin kuwaas oo qaarkood hadda magansaday guryo teendhooyin bacaha ka samaysan ayuu madaxweynuhu waxa uu kormeeray meelaha ugu dardaran ee fatahaadda webigu ay saameysay kuwaas oo ay ka mid yihiin xaafadaha Xawataako, Ceel Jaalle iyo meelo kale oo dadku aad u harqiyeen. waxa ka dhacay magaalada Beledweyne ayuu madaxweyne Farmaajo ku sheegay inay tahay masiibo qaran waxaana uu ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay awood kasta isugu geyn doonto sidii dadkan loo samata bixin lahaa isagoo beesha caalamkan ugu baaqay in tallaabo degdeg u qaadaan gurmadka dadka ku dhibaataysan magaalada Beledweyne. aan ku tilmaami karno musiibo qaran inay tahay muddo 7 casho ah ee magaaladu ay ku jirtay fatahaaddan 30,000 oo guri iyo 100,000 oo qoys ay ka soo barakaceen oo qaarkood aan ku aragnay hadda meeshii aan tagnay aan ku booqonnay Ceel Jaalle waad aragtaan xaafadan waxa leedahay Xawataako dadkii oo dhan waa aragtaan waa wada qaxeen oo meel la joogi kara ma aha waxaan u sameynay guddi musiibo qaran ah oo ay dawladdu ay ka qaadanayso qayb weyn hadduu Ilaahay yiraahdo inaan soo gaarno shacabkeena Soomaaliyeed oo halkaan ku waxyeeloobay oo aan la qaybsanno dhibka iyo xanuunka ay ku jiraan إن شاء الله وح الله وحي كران أنا هنا أوده وصاد ولدجنا باش عالم ك international community وحن كعطسنا أيقونا إن يقيبون كقاتان ذاتك الصومالية شعب الصومالي مركز تدقيهين هذا الدبد يجودها الجوجان بقى وحن كعطسنا إن يقيب كقاتان قيبون كقاتان هاوشان تاكلين توالو هذا كل ما توبي فتهدان قيبون كسوقاتان وحن ربعنا نمهد عليه والله أمسهم halkan nala jooga sida ay qaybta weyn uga qaateen si dadka uga soo badbaadin lahaayeen fatahaaddan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa socdaalkiisa Beledweyne waxa uu ahaa ka wardoonka xaaladda ay ku nool yihiin kumanaan qoys uu saameeyay fatahaadda webiga Shabeelle waxaana inta badan waqtiga madaxweynuhu ku bixiyay dadka xaaladdan degdega ku jira iyadoo taasi ay u suuragelin weysay in uu booqdo galbeedka magaalada Beledweyne. Ali Baasha Cabdullaahi magaalada Beledweyne.